أقبلوا معلمين توالدكنا أدينو الله معلمكنا كان الله كان آخرياتك الله كان. السلام عليكم. 1974 ayaa dawladii Soomaaliya ee xilligaas jirtay waxa ay 12 November u aqoonsatay maalinta macalinka Soomaaliyeed. Waxaan mowduucana maanta uga hadli doonaa kaalinta iyo mudnaanta macalinka Soomaaliyeed oo xilligan ku shaqeeya duruufo adag. Ku soo dhawaada mowduucana maanta. Ilaahay subhanahu wa ta'ala sida uu Quraankiisa ku yiri waxa uu aadanaha baray waxuusan aqoon u lahayn waxaase xaqiiq jirta ah inaan aqoonta macallin la'aan la kasban karin. Waxaana tusaale wanaagsan u soo qaadan karnaa rasuulkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam in markii uu waxyigu ku soo degayay uu Jibriil u ahaa bare oo uu Quraanka ku dul akhrinayay. Annaga haddii aan nahay bulshaweynta Soomaaliyeed macallinku qiimo weyn buu noogu fadhiyaa ka soo bilow dugsiga Quraanka oo ah halka ugu muhiimsan ee carruurta laga dhiso ilaa jaamacadda. Macalinka Soomaaliyeed waxa uu waxbaridda carruurta Soomaaliyeed gacanta ku soo hayay muddo aad u fog iyo marxalado kala duwan oo qaarkood aad u dhib badnaayeen tiyo ay jirto. Inta badan macallimiinta Soomaaliyeed waxa ay ku shaqeeyaan mushaharaad aad u yar oo ma jiro macallin baranimadiisa daaro ka dhistay ama hanti kale ka kasbaday. Laakiin waxa kaliya ee uu hawshiisa qiimaha badan ka dheefaya ayaa ah magac, sharaf, ixtiraam iyo in meel walba uu tago fadhiga lagu istaago. Waxa ammaan mudan macallimiinta isxilqaamay oo markii ay xukuumadii dhexe burburtay dugsiyada iyo jaamacadaha dib u soo nooleeyay kana dhiidhiyay in waxbarashada daad ku qaado. Carruurta Soomaaliyeed ee xasilooni darrada iyo kala dambeyn la'aanta ku dhashayna ku fiirsan waayay in ay ku barbaaraan jahli iyo aqoon la'aan. macallin intii ummadnayd adamaray. Sanadahan dambe bulshadeena waxa ku soo badanaya in shaqada macalinimada noqoto mid ku meel gaar ah iyada oo qiimihii iyo muhiimadii ay lahayd lagu soo koobo fikradda gaaban ee ah intaad shaqo fiican ka helayso iska sii noqo macallin. Fikirka noocan ahayna waxa uu saameyn ku leeyahay qiyamkii iyo kalsoonidii xirfadda macalinimada. Jaamacadaha ku yaala dalka Soomaaliya gaar ahaan caasimadda dalka ee Muqdisho heer waxa ay gaareen in kulliyadaha waxbarashada ama macalinimada ay ku dhigaan si bilaash, taasoo muujinaysa in kulliyadda waxbarashada ama macalinimada loo daneynayn sida kulliyadaha kale. Sidoo kale macalinimadu waxay noqotay shaqooyinka ugu hooseeya ee waddanka laga qabto, taas oo horseeday in aan la helin macallin tayo iyo xirfadba leh. Haddaba iyada oo uu macallinku yahay hoygii iyo hooskii aqoonta lama siinin mudnaan iyo qadarin gaar ah, waana ay yar tahay inta abaalkaas u haysa. Miisaanka macalinimo in la ilaaliyo ma aha wax sanadahan dambe bilaabmay. Macallinku waxa uu ku maqaam iyo darajaba dhawaaday rususha. Tusaale ahaan rususha waxa loo soo dirayay oo loo soo saaray inay ummadda ka saaraan mugdiga oo ay u horseedaan nolol iftiin leh oo Ilaahay raali ka yahay. sidaas si la mid ah macallimiintu waxa ay heegan ugu jiraan sidii ay ummadda iyo ardaydaba uga saari lahaayeen jahliga, door muhiim ah ka ciyaaraan barbaarinta carruurta ilaa ay ka noqonayaan aqoon-yahano ku filnaada noloshooda iyo tan qoyskoodaba. Maanta waxaa la yaab noqotay in hoos loo dhigay qiimihii macalinka laguna baraarugsanayn samirkiisa, dadaalkiisa, dulqaadkiisa iyo darajadiisaba. Haddaba maadaama hoos loo dhigay milgihii iyo maamuuskii macalinimo, waxaa dawladda, bulshada iyo ururada u dhaqdhaqaaqa macallimiinta looga baahan yahay inay dardargeliyaan howlaha kala duwan ee kor loogu qaadayo karaamada iyo sharafta macallimiinta. Dawladda oo ah tiirka koowaad waxay abaabuli kartaa barnaamijyo lagu tayeenayo korna loogu qaadayo qiimaha macalinka. Qaar ka mid ah tallaabooyinkaasna waxaa ka mid ah in kobcin iyo kor u qaadis badan lagu sameeyo xirfadda macalinka iyada oo loo qabanayo tababaro xiriir ah, aqoon isweydaarsiyo iyo xoojinta xirfadaha macalinimo si loo helo macallin tayo leh. In dawladdu iyada oo kaashanaysa hay'adaha maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ahba u kordhiso mushaharka macalinka si uu u yeesho awood dhaqaale oo dabooli karta baahiyihiisa aasaasiga ah iyo tan qoyskiisaba. In wacyigelin loo sameeyo qaybaha kala duwan ee bulshada si ay isugu dayaan in ay wax badan ka geystaan dhiirigelinta macallimiinta. Ugu dambeyntii, kobcinta iyo kor u qaadida qiimaha macalinka ee bulshadu waa mid ka mid ah waxqabadyada ugu wanaagsan maadaama macallimiintu ay wax baraan qaybaha kala duwan ee bulshada. In macallin tayeysan la helaana waxay ka mid tahay dadaalada lagu daaweynayo xanuunada ku dhaca bulshada sida jahliga, qabyaaladda, qaadka iyo qaar kaloo badan. daawadayaal muuqaalkeena maanta halkaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. Haddii aad ka heshay muuqaalka fadlan like saar lana wadaag asxaabtaada kale. Waa inoo muuqaalkiisa xiga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. وحناهاي وندا معلنكا واجي بريبا أو بحلقا ورابشو